ayaa waxaa la sheegay in ay ka soo duuleen Afrika kadibna Canada markii ay sidaas u galeen uu ay balaaye ah oo si fiican loo tababaray uu uriyay sahlan maaha boorsad ku jir ilaa iyo Afrika boorsad ku jir wax sahlan maaha wallahi in boorsadii bay soo raaceen macnaha boorsadii hay'ad waxa la yaabaan xabada kale la siiyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو هذا كان الكلام نقدر ونسام حي وسكسولا فلان جنال كاتاكو سبسكرايب كومنت ودنك فيديو هورت إنتان إدي كودا قليل لايك إنك صار لايك تما بس صارتان بورتو أرك ما أنا لايك صار مده بركة إنه ما بس صارتان لايك أوكي فيديو لايك صار بليز لايك صار حتى إنك صبتان سبسكرايب وحبوا بلاش إنتوا بلاش بركة ما خميس بان وضعنا خميس بان وضعنا أوكي marka maanta waxaan raash ka bixin doonaa wiil intuu Ethiopia ka soo tahriibay waxa la soo diray shalay baa ka soo bixi leeyahay marka ninkana wuxuu leeyahay lama oga meeshii laakiin maanta la soo ogaaday inuu wadanka Ethiopia ka soo safray uu Canada tagay marka sahal ma noqon karto qof intuu ka baxo boorsad laba qof waliba weeyaan boorsad baa la raaciyay marka boorsadii kulkii la raaciyay baa waxa halka ilaa iyo boorka horta way dhaafeen Canada kolkay dhaceen ay gaarigooga fuushi dhahayn ayda Canada joogtana dawaa ila tababaro ya wax walba sameyn kara moogta marka aydii baa khashuftay marka aan waan ka xumahay daano in la khashufo wallahi aad baan uga xumahay in la khashufo marka aydii baa khashuftay kadib baa boorsadii adu la fiiriyay kadib kolkii boorsadii la fiiriyayna waxa laga arkay wiilashiyo madaxiyo waaweyn ya xogaa waxana ay xirmi laayahay ka haduu xirmi marka waxa laga arkay wiilashii madaxyadoodii un bal arkay marka wiilashan xagee ka imideen waa la soo raac marka bal horta waxba yaan hadalkii ku daalin fiidiyoga ugu gudbayna okay full screen wadayaal arinta tahriibka warkaad maqashaanba warka kale ka daran waxa la sheegay nin ka yimi wadamada Afrika ilaa hadda wadan aan la sheegin oo markaasi laba nin bayna ahaayeen oo waxa la sheegay inay Canada ilaa to Afrika ay boorso markaasi ku dhex jireen waranaga ayaa aragnay inna wallahi horta wax sahlan maaha boorsad ku jir ilaa iyo Afrika boorsad ku jir wax sahlan maaha wallahi in boorsadii bay soo raaceen macnaha boorsadii hay'ad waxa la yaabaan xabada kale la siiyay waxa weeyaan ku jira hani la fahmi waayo oo caadi si u adkaysanaysiin huurka iyo neef la'aanta ya intaas iga yaabanta kala maanta goofiyadii waa saaro madax bas dhalo bas waa balay waa maanta moogta bala si socono naftoodii oo dhanba ma xasuustaan waxa la sheegay laba nin oo ilaa hadda wadanka ay ka soo duuleen aan la sheegin magacyadoodana aan la sheegin balse sawirada wajigooda la soo helay ayaa waxa la sheegay in ay ka soo duuleen Afrika kadibna Canada markii ay sidaas u galeen uu ay balaaye ah oo si fiican loo tababaray uu uriyay in ay halkaas ku jiraan dad nool yaani eeda inta badan tababar ay qaataan tababarkaasna waa kuwa inta badan marka ay shaqo qabanayaan shaqadaasi loo carbiyo kadibna shaqadaas ay si sax ah ay u qabsadaan waxay markaasi soo saaraan wax kasta oo markaasi loo tababaray haddaba arinta cajiibka ah waxay tahay in Canada oo ah meel aad iyo aad masaafo macnaha kuwiisi way bixeen way ka bixeen Afrika way ka bixeen muuqaalkan shalay baa la soo diray marka shalay kolkii la soo diray ninkan baan dhageysto wuxuu lahaa lama oga meesha ka soo bixin laakiin waa la sheegay Ethiopia ay ka soo bixeen wadanka Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa ka soo duuleen baa leeydi marka Addis Ababa ee boorkeegii lagu fahmin waxaan ana filin ku daawaday caadi ma maanta u dhacday maanta caadi ma u dhacday ana filin abu ku ogaay marka Addis Ababa way dhaafeen ilaa iyo Canada kolkii saa uga daadageen ninkii soorta Addis Ababa kolkii dhaafeen horta ugu nafisay horta ninkii labadooduna way nafiseen marka kolkii ay soo dhaadhiceen ay barnaanka socdaan waa ka wada jeedaan ay wax u dareema inay meesha ku jiraan meesha dad nool oo aan naftoodii qabo marka waa laga soo saaray labadii nin banaanka la keenay marka ayga khashfay okay waa si socon fogtahay iyo sidoo kale Afrika in ay ka soo gudbeen Afrika oo ay laba boorso soo kala galeen waa laba boorso waana boorsooyinka halkan idin ka muuqda waxaana la sheegay labadii nin in lagu qabtay markaasi garoomka oo ay eedaasi fashiliyeen eeda inkaar Allah idin ku rido
nimankaas kama aysan ajarsan sababtoo ah waxay ahaayeen marka xaqiiq laga hadlo dad nolol doona oo qof bini aadana oo ilaahay karaameeyay uma malaynayo in uu yacni waxaas oo kala sameynayo sababtoo ah waxaa macquul ah in ay markaasi nolosha Canada ka jirta ay markay wareysteen ama ogaadeen ama xogtaas si fiican u raadiyeen inay ka fiicnayd tahay ku noolaayeen kadibna ay u haajireen wadankaasi Canada marka lama yaabana dadkaasi daawadayaal waxaa xusud mudan inaysan arintani ahayn arintii ugu horeysay ee dhacda balse ay dhaceen arrimo kale oo waxa mar kale ka dhacday markaasi Kenya inay ahayd baan jecelahay wiil dhalinyaro ah oo waxa uu fulay taayirka diyaaradda markaasi ay laabato marka ay kacayso taas oo la sheegay in uu isla markiiba laga gaadhay haddaba dhacdadani waa dhacdo yaab leh waana mid naxdin leh dad intaas oo macnaha wiil yar oo kalena intuu diyaarad fuulay buu in xaggoose shaaga ayuu qabsaday kadib diyaaradii oo kacaysa la arkay wiilka yar diyaaradii baa la joojiyay marka waxaasoo kale isku sameynaa waa ka wada arkaysi ninkan fursada yar intaa leeg ku soo jiray waxaan xasuustaa dadyowga oo markaasi qaad iyo sidoo kale muqaadaraad iyo wax la mid ah boorsooyinka ku qariya kadibna wadan kale u dira balse dhacdadani waa dhacdo fashil ku dambeysay oo waxa la sheegay in nimankan waxa kaliya ee fashiliyay ay noqdeen eygii markaasi ku sugnaa garoomkaas kadibna uu ka sheekiyay halkan kadibna qaylo uu ku dhuftay wali muuqaalkaasi la salama fbaahin daawadayaal tahriibkii adduunku meel xun ayuu marayaa oo markaasi waa tahriibkii ugu casrisanaa ama ugu cajiibsanaa ee Afrika to Canada aan arko ilaa hadda waana dhacdo markaasi la yaab leh oo argagaxeeda leh qof bini aadan ah wali laba nin bay ahaayeen sida naloo sheegay xogta oo aan markaasi jaraa'id badan oo Canada laga leeyahay ay qoreen sidoo kale wararka iyo sidoo kale bogagga Soomaalida qudhoodu ilaa maanta waa la hadlayay marka dhacdadan ayaa soo korodhay bal saaxiibayaal dhacdadani way fashilantay maxaad adigu yacni aad ku fakari lahayd tusaale ahaan adoo doonaya inaad horta muuqaalkiisa taas ay ku ekeenaa uu badan yahay muuqaalkiisu marka wiilasha yar way fashilmeen u maandhay karnaa macnaha nasiibku ma fiicno ma jecleynaan inay la qabto ma jecleen in la qabto marka wiilal dhalinyaro oo iska rabeenay nolosha Yurubta iska noolaadaan marka ma jecleen in la qabto balse nasiib xumadooda waa la qabtay wali waxay ku jiraan Canada xabsiga Canada ay ku jiraan marka waa laga yaabaa inay sheegaan ay ilaahay noloshii baa nacnay waxay dadka Yurubta joogaan ay ku qarxabtaan ay dhahaan waxaan yarnahay anagu qabiilkeen waa nagala agood badan yahay saanimaan soo dhuka waan ka soo baxsanay inay dhaxan ba laga yaabaa marka waa la sii deyn karaa oo iska noolaan karaan Canada marka maanta muuqaalkani taas ay noogu yeegayaan videoga inta kulmi doono waxa ay ka tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh